bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada Soma IT tutorials iyo casharadii Python-ka cashirkii 15aad. Cashirkan waxaan kaga hadli doonaa haddii aad idmo lists ayaan kaga hadli doonaa. Waa maxay lists? Maxaa loo isticmaalaa iyo sida loo isticmaalo programs ahaan ayaan ka hadlaynaa. Casharadii ugu horeeyay basic iyo waxyaabahan ka soo hadlaynay conditionski loop sida loo isticmaalayo. So lists ayaa cashirkan uga hadli doonaa marka. Waa maxay lists? Lists are used to store multiple items in a single variable. Marka aad rabtid inaad items badan ku keydisid hal variable waxaad isticmaalaysaa lists. Python-ka list ayaa la isticmaalaa marka multiple items ama items badan aad keydinaysid oo hal variable aad ku keydinaysid waxaad isticmaalaysaa lists. Lists are one of the four built-in data types. Waxay ka mid yihiin in Python. Python-ka data typeska uu ku dhisan yahay afarta ah ay ka mid yihiin lists-ka ay ka mid tahay. kuwaasoo loo isticmaalo in lagu keydiyo collections of data oo group sameynaysa ama koox data in la keydiyo collection of data group of data waa dhici kartaa in lagu keydiyo data typeska loo isticmaalo Python-ka afarta ah ayay ka mid tahay listiga. saddexda kale waa tuple, set iyo dictionary. marka aad rabtid inaad keydisid xog group ah ama collection of data marka keydinaysid afar data type Python-ka la isticmaalaa. lists koob ayay ka tahay tuple, set, dictionary. intaas waxaa loo isticmaalaa inaad keydisid xog data inaad keydisid, laakiin mid kasta waxay leedahay different qualities and usage. mid kasta tayadeeda ama qaabka waxa ay ka hadlayso iyo qaabka loo isticmaalayo ayay ku kala duwanaan doonaan, laakiin waxay ka midaysan yihiin inay sameeyaan collections of data, group of data inay sameeyaan. So lists marka rabtid inaad isticmaashid marka sidee u isticmaalaysaa list u sameynaysaa program. waxaa la isticmaalaa listiska square bracket ayaa la isticmaalaa oo kan waa square bracket kan ayaa la isticmaalaa marka aad rabtid inaad list program sameysid. tusaale ahaan listiska hadda waxaan keedinaynaa variable kan x soo qaadanay. dabcan object yana la dhahaa ugu Python-ka mar walba aad joogtid objects la isticmaali doonaa. x taas hadda waa object list waxay ku keedsan tahay waxa ku keedsan different items ku keedsan different items kan waxa way lists ay sameynayaan oo square brackets ayaa isticmaashay waxaana ku kala saaraysaa itemska square bracket kan list kan ku dhex jira comma-daas ayaa lagu kala saaraa ugu itemska. haddii item comma oo meeshan aysan u dhaxaynin hal item ayay noqonaysaa. tusaale 1 iyo 2 dan comma ayaa kala saartay 12 ayay noqon lahaayeen haddii kale. haddii comma aysan u dhaxaynin 12 la isku dhihi lahaa hal item laga soo qaadi lahaa. haddii saddex tusaale 1 2 3 oo kale haddii comma aysan u dhaxaynin 123 laga soo qaadi lahaa hal item. 1 2 3 4 haddii comma aysan u dhaxaynin 1234 oo hal item ahaana loo soo qaadi lahaa. 1 2 3 4 5 haddii aysan comma u wada dhaxaynin maxaa laga soo qaadaa 12345 oo hal item ahaana loo soo qaadaa. marka waa inaad fahanto comma ujeedka loo isticmaalayo in ay tahay inay kala saarto itemska listiga gudihiisa ku jira. so markaad daabicisid maxaa sameynaysaa marka printer soo qaadanaysaa kaliya objectigi oo listiga dhex gelinaysaa sidaas ayay kugu daabicaysaa daatada. kaliya ma ahan inaad number isticmaali kartid lists dhexdeeda data types kala duwan aad isticmaali kartaa. aad rabtid magacyo daabici kartaa abdi asha ali strings aad daabici kartaa any data type ayaa item ahaan uga dhigi kartaa listiska. so marka print gareynaysid print ayaa soo qaadanaysaa list output-ka ku soo baxay. programkan hadda sameyno tusaale ahaan oo kale haddaan idin tuso tusaale lists ayaa soo qaadanay ugu list marka sameynaysid variable-ka object marka sameynaysid listigan hadda ereygan fiiri list ay isticmaalayno waa keyword. dabcan marka keyword-ka inta badan wax ka duwan inaan isticmaalno capital aan ka dhigno si aan uga duwno ila keyword-ka waa isticmaali kartaa Python uu ka yeelaa mararka qaar laakiin inay confusions badan ku sameyso ama program badan error badan ku oo aad filayn ku soo saartaa dhici karta. marka kala ilaali variableska waxyaabaha u isticmaalaysid objectskaaga adiga aad sameysanaysid iyo keywordska Python-ka. so list capital aan ka dhigna hadda equal marka dhaxna marka maxaa sameynaynaa square bracket kan maxaa dhex gelinaysaa itemska listiska ayaa dhex gelinaysaa. so itemska listiska tusaalahan maxaa sameynaa 1 haddaan dhaho 2 oo kale 3 haddaan dhaho 4 5 oo kale sidaas aad u sameynaysaa. haddaad rabtid markaa sii wadi kartaa. markaa rabo inaan daabaco maxaa sameynaa print ayaa soo qaadanaa maxaa dhex gelinaynaa list oo ah magaca listiska objectgas ayaa dhex gelinaysaa. so sidaan haddaa programka run ku dhaho program waxay soo baxaya fiil listiska ayaa soo bixiyay oo output-kii ahaa 1 2 3 4 ayaa soo baxday. so sidaa marka waxaa ku sameyn kartaa output-kii ayaa kusoo daabici kartaa. haddii aan sii wadno list items waxaa la dhahaa itemska gudaha ku jira ee comada kala saarta
muxuu ahaa square bracket ku jira kuwaasa waxay yihiin list items kuwaasa ah. List itemska waxa ay yihiin ordered, kuwa nidaamsan ay yihiin, changeable la bedeli karo, alle waxay ogolaadaan duplicate values inaad soo celcelisid qiimo muxuu ahaa lists ku jira inaad soo celcelisid. maxaa laga wadaa ordered inta lagu sharxi doonaa dhammaan buu arki doonaa muxuu ayaan ka hor dhicin. So list itemska waxay yihiin indexed waaye. Indexed waxaa laga wadaa item walba oo listiska ku dhex jira positionka uu fadhiyo waxa uu leeyahay index number ayuu leeyahay oo asaga lagu access gareynayo hadhow haddii loo baahdo marka la rabo in sida array dadka C programming iyo C++ soo arko kale array marka soo baranaysay index lahayd. So lists sidaas oo kale index ayuu leeyahay. kan ugu horeeya indexkiisa wuxuu ka bilaabanaa 0, kan ku xiga 1, kan ku xiga 2, sidaas ayuu u soconaa ilaa iyo numberka muxuu ahaa arabtid ugu dambaysid. marka saas oo isticmaalaysaa. So lists are ordered maxaa laga wadaa marka? Lists are ordered waxaa laga wadaa when we say lists are ordered, it means micnaheedu waxa uu yahay that the items have in ay leeyihiin a defined order qeexan inay leeyihiin oo laga sii wado haddii lasii jilciyo that order will not be changed. micnaheedu orderkaas ma isbedelayo. haddii marka intaan la fasiro orderka maxay tahay, tusaale for example oo kale if you add new item hadaa ku dartid oo cusub listiska hadaa kusoo dartid itemkaas waxaa la dhigi doonaa meesha ugu dambeysa ee listiska. so kuwa ka horeeya ku dhex qasmi doono. laakiin ogow mar walba waxaa jira methods ayaa jira ama functions ayaa jira kuwaasoo bedela orderka listiska. laakiin markasto si guud waxaa ogaataa order items muxuu ahaa listiska isma bedelayo. laakiin waxaa jira mararka qaar oo kale haddii functions la isticmaalo in functionskaas ay bedelaan orderkii listiga inay bedelaan. so waa marka lists are ordered. taas marka ugu marka hore changeable waxaa laga wadaa maxay tahay, item walba oo listiska ku dhex jiro waa la bedeli karaa oo micnaheedu waxaa laga wadaa we can change, add, remove items. waxaan ku dari karnaa item cusub, waxaan ka bixin karnaa item hore ugu jiray, waxaan bedeli karnaa item muxuu ahaa ku jira ayaa mid kale ku bedeli karnaa in a list after it has been created. marka listiska aad samaysid tusaale ahaan haddii programkan listiska waan sameynay so 1 2 3 4 inta ku jirta haddii programkan aan daabaco waxaa noo soo baxaysa 1 2 3 4. tusaale listiska waxaan rabnaa inaan bedelno. sidee u bedelaynaa? waxaan soo qaadanaa listiska itemka aan rabo inaan bedelo maxay tahay, ama item waxaan ku dari karaa item cusub laakiin functions isticmaalina marka ma rabno. hadda waxaan rabaa inaan bedelo iska soo qaado kale 2daas inaan bedelaa rabaa, item 2gaas inaan bedelaa rabaa. so mid walba wuxuu leeyahay index number ayuu leeyahay. indexga waxa kasoo bilaabanaa 1 2 3 sida meesha oo fadhiyaan iyaga waa items hadda, laakiin indexigoodu wuxuu kasoo bilaabanaa meeshan positionkan waa position 0, positionkan waa position 1, positionkan indexkiisa waa 2, kan indexkiisa waa 3, kan indexkiisa waa 4. saas ayay ku soconaysaa. so haddii aan marka aqaano listiska indexkiisa position 2ga waxaan u qaadanaa 1 sababtoo 0 iyo 1 positionkan waa marka position 1 position 0 position 1 saas ay noqonaysaa. kana rabaa marka inaan bedelo maxaan sameynaa marka equal ayaa leeyahay kana ku bedelayo tusaalahan kale 10 aan ku bedelaynaa. hadda marka lists hadaan daabaco print aan dhaho oo lists marka aan daabacno waxaa inoo soo bixi doono 2d oo la bedelay. tusaale mid koowaad waa kan 1 2 3 soo baxday, kan labaadna waxa soo baxay 1 10. so 2d waa la bedelay. waxaan ku bedelnay waxaan isticmaalnay indexiga qaabkaas u isticmaalaysaa. indexigiisa waa 1 sababtoo ah 1 kan ha fiirin 1 2 3 item misal la kuwan meesha ku jira, laakiin positionka ay fadhiyaan listiska ay ka leeyihiin waxa ay leeyihiin index number. so indexka 0 ka soo bilaabana hadda soo wado 0 1 kan positionkiisa waa 1 marka saas daraadeed listiska u wacaysa objectiga waxa u baas gareynaysaa indexiga, waxaad leedahay indexkaas waxa u assign gareysaa itemkan cusub. so itemka hore waa la bixinaa marka. so qaabkaas uu marka listiska in changeable yihiin oo bedeli kartid qiimahooda. allow duplicate sal dhahay listiska waxay qaataan duplicate. so duplicate mararka qaar oo kale haddii aad maqashid waxaa la dhahaa items inta badan la soo celcelin karo programs tusaale ahaan oo kale meeshan hadda 2 ayaa ku jirta. okay kan hadda iska bixin oo baahnin programkan haddaan daawacno 1 2 3 anoo soo bixisay 1 2 3 4 anoo soo bixisay 2da waan soo celin karnaa waxaan dhigi karnaa 2 programka haddaan daawacno maxaa soo baxay fiiri 1 2 2
oo ah toodii loo marina soo celinay. So listiska duplicates ku aqbalaa oo nambarada items kala soo celceliyo listiska waa uu aqbalaa. waxaa jira marka kuwa qaar oo aan aqbalin sida setka oo kale iyo dictionary oo kale waxyaabahaas oo kale kamid ah. So items marka listiska waa duplicates inuu muxuu ahaa ogol yahay oo wax problem ah value-ga hadda soo celisid aysan ku yeelanaynin. tusaale markaa sameynaysid waa kan oo hadda kan uu sameynayo kale apple banana cherry iyo apple marka la soo celiyay sidaas marka daabacdid wax problem oo malahan. marka rabtid inaad ogaatid lengthiga inta uu macnaha listiskaaga size-kiisa ama inta uu ka kooban yahay items uu ka kooban yahay inaad ogaatid haddaad rabtid to determine how many items a list has waxaad isticmaashaa length function isticmaalaysaa. so length function tusaale ahaan oo kale anaga programkeena hadda maxaa waaye 1 2 2 dan sideedna u dhaafeynaa problem lahan. lists markaan daabacno meeqa items ayuu listiskan ka kooban yahay 1 2 3 4 5 6 sidaan hadda programkeena waa tiri karnaa 6 item aan dhigi karnaa. laakiin mararka qaar listiska wuxuu haysan karaa items aad u badan oo ayuu haysan karaa oo muxuu ahaa aadan tiri karin. so maxaa isticmaalaysaa marka print ayaa leenahay waxaa dhex gelinaynaa length function ayaa dhex gelinaynaa. so length function markaa dhex gelino maxaa la isticmaalaa fiiri meeshaan length function waxaa ku dhex isticmaalaynaa listiskii oo muxuu ahaa functionka waxaa dhex gelinaysaa listiskii sida hadda tusaalahan aad ka arkaysid. listiska maxaan ka wadaa waa list objectiga programka object ayaa la dhahaa inta badan variables iyo waxyaabahaas mar walba wuxuu ahaa programs kale ayaa ku arkaysaa laakiin marka python joogtid objects aad u maqlaysaa. so length function maxaa u baas garaynaysaa marka list ayaa u baas garaynaysaa. programka hadda daawacno waxaa inoo soo baxay 6. so 6 kaas maxay tahay waa lengthiga ama inta items uu ka kooban yahay listiska aan programka hadda ku isticmaaleyno. so 2 dana loo mar soo celiyay haddii kale 5 items ahaan lahayd. so qaabkaas u samayn kartaa mar walba length function waxay ku soo celisaa inta number uu listis ka kooban yahay waxa u baas garaynaysaa ama argument ahaan waxa u siinaysaa listiska ayaa muxuu u siinaysaa kabacdina waxay ku soo celinaysaa printers way ku daabicaysaa marka sidaas inaa ugu dhex isticmaashid waa okay. list item data typeska data types waxaa la dhahaa nooca data itemka uu noqonayo. tusaale itemska list ku isticmaalaysid waxay noqon karaan string ay noqon karaan integer ay noqon karaan boolean ay noqon karaan. data typeska marka qaabkaas ay wax walba waxta listiska dhexdiisa ay noqon karaan tuple ay noqon karaan waa arki doonaa. marka listiska itemska ku dhex jira ma lahan data type ugu aan ma lahan wax walba data type noqon karaan. tusaale list 1 list 2 list 3 saa ujeedid saddex list waay midkan waxaa la isticmaalay string la isticmaalay midkan waxaa la isticmaalay integer kana waxaa la isticmaalay true false boolean ayaa la isticmaalay. so mid kasta waxa uu leeyahay data typeska muxuu ahaa kala duwan ku jira hadda saa ujeedid. haddii aad rabtid marka waxaa samayn kartaa xitaa hal list ayaa waxaa gelin kartaa number string boolean midka rabtid isla gelin kartaa sida tusaale kan oo kale hadda ka muuqata abc daas waxay tusinaysaa string 34 taas waxay tusinaysaa item kale oo integer ah kan waxay tusinaysaa item boolean ah kan waa integer kan waa string saasay noqon kartaa. so items listiska uu ka kooban yahay ma lahan data type u gaar ah wax walbo items aad rabtid meesha ayaa soo dhigaysaa kaliya waxaa ku kala saaraysaa comada ayaa ku kala saaraysaa string items kan waxay isticmaalaysaa double quotes ama single quotes mid aad rabtid. python collections marka waxyaabaha collectionska uu sameeyo pythonka maxay tahay 4 collection of data types python ku jira waana list iyo tuple iyo set iyo dictionary. listiska waa ordered changeable ordered way way nidaamsan yihiin changeable way waa la bedeli karaa items ku jira duplicate members way ogolaadaan oo listiska items ku jira duplicate way noqon karaan oo soo celin karta item kasta. tupleka waa asna sida listiska way kaliya wuxuu kala duwan yahay unchangeable way ma la soo celin karaa isaga sorry ma la soo celin karaa ma la bedeli karaa dhahe itemka tupleka markaan gaarnaa baran doonaa listiska markaan dhameyno ku xiga unchangeable waxa waaye marka aad create tupleka itemska aad isticmaashay gadaal update ma ka samayn kartid item ma bedeli kartid mar haddaa create gareyso asna laakiin inta kale list ayuu kala mid yahay. setka wuxuu kaga duwan yahay unordered waay marka hore unindexed waay indexna ma lahan duplicate-na ma ogolaanayo setka waa baran doonaa asagana. dictionary asagana sidoo kale dictionary waxaa la dhahaa ordered waay iyo unordered waay sababtoo ah dictionary hadda 3.6 versionka python 3.6 dictionary ordered waay ayuu leeyahay laakiin wixii ka horeeyay oo kale unordered ayay isticmaalayeen muxuu ahaa dictionary-ga.
so changeable waa asagana waa la bedeli karaa no duplicate members asla laakiin ma ogolaado wax duplicate in maxaa la soo celceliyo so qaabkaas ayay Python u sameynaysaa access list items markaa rabtid in access gareysid hore u soo sheegnay waxaa isticmaalaysaa indexiga list items are indexed waxay yihiin kuwa mid kasta position kooda index uu leeyahay index number uu leeyahay so you can access them by referring to the index number item kasta meesha ku jira haddii xitaa itemkaas uu number yahay positionka itemkaas uu fadhiyo waxa uu haystaa index number so index numberkaas ku access gareyn kartaa tusaale oo kale second itemka listiga hadda marka la daawacayo apple iyo banana iyo cherry ayaa listigan ku jira second itemkiisa waa banana dabcan markaa rabto inaad daawacdid maxaa sameynaysaa print ayaa soo qaadanaysaa objectiga listiga ayaa soo qaadanaysaa waxaa dhex gelinaysaa indexga itemka aad rabtid second item maa lagu dhahay so ko labo programka adiga ko laba caadi aad leedahay laakiin asaga muxuu kasoo bilaabaa 0 1 ayuu kasoo bilaabaa so kan 1 ayuu noqonaa sidaas ayaa programka uu ku daawacaa negative indexing iyo range of indexeska iyo muxuu ahaa iyagana cashir gooniya topic gooni ayay noqon doonaan oo cashir kale ayaan ku sharxi doonaa so haddii aad rabtid marka inaad jeegareysid tusaale ahaan oo kale item ka mid ah listiga inaad jeegareysid aad rabtid waxaa la isticmaalaa in ayaa la isticmaalaa indexiga oo keyword ah dabcan waxaa isticmaalaysaa in keyword to determine if a specified item is present in list use the keyword in sa ujeedid so tusaale ahaan oo kale markaan hadda program ahaan ku sameyno waxaa ka mid ah ka markaas ka bixino waxaa leenahay programkeena print ayaa leenahay print markaa dhahno waxaan jeegareynaynaa haddii 4 ay ku jirto listigan 4 way ku jirtaa waa ognahay so maxaa leenahay 4 in list ayaa leenahay programka markaan dhahno maxaa inoo soo baxay fiiri true ayaa noo soo baxay so truedan micnaheedu waxa ay tahay listiska waxaa ku jira 4 ayaa ku jira haddaan dhaha fiiri tusaale ahaan oo kale 6 haddaan meeshan dhaho maxaa inoo soo baxay fiiri false it means 6 kuma jirta listiskan kuma jirta so in marka waxaa loo isticmaalaa iyadana markaa rabtid inaad jeegareysid muxuu ahaa item inuu ku jiro ama item ka mid ah itemyada listiga in specified itemka aad sheegaysid waliba aad dhehaysid itemkaas ma ku jiraa oo kale stringgan ma ku jira listiska inaad sidii numberkan ma ku jira listiska u isticmaali kartid marka qaabkaasna waa qaabka aad u jeegarin kartid haddii item uu ka mid yahay listiska inaad fiirisid aad rabtid so change list itemka waa soo sheegnay markaa rabtid inaad list itemka bedeshid waxaa isticmaalaysaa indexga ayaa isticmaalaysaa oo sida tusaalahan dhow wuxuu noo sheegaa programka aan soo sameynay ayuu noo sheegaa marka mar rabo inaan video aan dheereeyo cashirkii xigta waxaan ka bilaabeynaa range of items tusaale ahaan oo kale 3 item 2 item iyo wixii kasii badan iyo waxyaabaha sidii loo bedeli lahaa hal mar programka listiska looga bedeli lahaa iyo wuxuu ahaa programyo badan ayaan muxuu ahaa kusoo qaadanaynaa cashirka xiga insha Allah meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiiq